fadlan subscribe saar channelka SYC Media haddii aad subscribe riix calaamadda casaanka kadibna riix gambaleelka si durbay ku soo gaaraan muuqaalada cusub oo ku soo socda barnaamijyada cusub ee ka baxa SYC Media. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال muuqaalkan waxaan wareysi kula yeelanaynaa Raxmo Muuse ah gabar dhigata fasalka 12aad waxayna mar waliba ku taantaas sida ay kaalin hor leh u noqon lahayd iyo xaqiijinta hadafkeeda. ku soo dhawaad barnaamijka Raxmo haddii aan u gudagulno barnaamijkeena Raxmo yaa kugu dhiirigeliya inaad waxbarashadaada ka meel dhaliso oo aad gaarto hadafkaaga. aniga waalidkayga ayaa kaalin weyn ka qaatay mar kastana igu dhiirigeliya inaan waxbarashadayda ka mid dhaliyo iyaguna ay isku filaadaan wixii hawl xaafadeeda waalidkayga waxay ii ballan qaadeen inay iyagu ku filan yihiin iyo familygayga gabdhaha ila dhashay waxa weeyaan waxaan mar kasta la igu dhiirigeliyaa inaan wax barto aniguna marka waxa iga go'an maadaama waalidkayga iyo familygayga si ay ila dadaalayaan horeyna iga go'nayd haddana iga go'an inaan mar kasta sidaan kaalmaha ugu sareeya gabdhaha deegaanka oo dhan aan guul ugu soo hayn lahaa shakhsiyan hadafkayga ah inaan meel sare gaaro inaan kaga dhabeeyo waayo qofku waa inuu vision iyo mission leeyahay. su'aasha xigta Raxmo ma leedahay wax jadwal ah oo aad ku maareyso waqtigaaga? hadda aniga guriga waxa ii yaala qorshe toddobaad la ii yaala toddobaad walba qaabkan wax u akhrisanayo waxa weeyaan maadooyinkan akhrisanayo waxyaabahaas oo dhan marka qofku hadduu qorshe leeyahay qorshihiisaas ayuu ku dhaqaaqayaa ilaahayna ma aragto uu garab qabanaya marka anigu sidaas ayaan iiga go'antahay inaan wax u barto oo aan anfaco waalidkayga igu soo rafaaday iyo waxa weeyaan familygayga qaybo. su'aasha saddexaad Raxmo adiga maalinkii imisa saacadood ayaad wax akhrisaa? horta arday wax akhriya iyo ardaygan akhriin isku mid maaha oo klaaska xataa markay joogaan waa la kala garanayaa sidoo kale qofka muuqiisa ayaad ka garanaysaa oo qofka ardayga wax akhriya ama qofka akhriska caadista inkastoo Soomaalidu ay oral community yihiin bulsho hadasha oo aan Soomaali ahaan u badannahay dad hadla laakiin haddana waxa weeyaan dadka horumaray oo dhan waxay ku horumareen waa hadda qowmiyadaha kale oo dhan haddaad u fiirsato raysla yar marka aad gasho inta timaha lagu xeerayo waxa weeyaan ama inta aad sugayso kan timaha loo xeerayo jarayd baa lagu dhiibaa akhrisanaysaa macna faa'iidada uu leeyahay cid walba way dareemi kartaa bulsho ahaanna waxaan rajaynayaa innaguna inaan maaragtay dadka horumaray ku dayano maadaama akhrisku qofka bini'aadanka kow hadda akhrisku wuxuu noogu fiican yahay ardayda kale waad ka firfircoonaanaysaa waayo wixii aad akhriday baad garanaysaa oo macallinku sharaxaya. maxaad rajaynaysaa inaad barato mustaqbalka? waxaan rajaynayaa hadda sidaad weydiisay imtixaan baa heer qaran baa nagu soo foodle imtixaanka heer qaran waan isku diyaarinayaa insha Allah kulli ilaahay baa og natiijada laakiin aniga dadaalku iga go'an yahay inaan dhibco sare keeno waxaan rajaynayaa anigu aan aad u jecelahay inaan barto political science baan aad u xiiseeyaa maadaama xagga administration kana aan anigu shakhsiyan aaminsanahay inaan ku fiicanahay oo waxyaabo fara badan haddaba anigu ardayda aan maaragtay ka qayb qaato maadaama aad jeceshahay inaad barato political science oo aad naxiisay siyaasadda yaa kaga daysataa siyaasadda haddaba anigu ardayda aan maaragtay ka qayb qaato waxa weeyaan inaan siyaasadda deegaankeena sidaa uu waxa weeyaan qofku tusaale ka dhigtaa madaxweynaheena Cabdi Maxamed Cumar iyo xisbigeena talada deegaanka haya ayaan anigu mar walba ku daydaa oo tusaale ka dhigtaa. ugu dambeyntii Raxmo waxaad faahfaahin kooban naga siisaa jadwalkaaga maalinlaha ah? waxa weeyaan jadwalkayga hadaan si yar kooban uga sheekeeyo aroortii waxaan ka caashanta iyo barka subaxnimo waan weysiistaa salaada subax waan tukadaa markaan tukado ka bacdi waxaan isku diyaariyaa ilaa intii 7 ka gaarayso waxa weeyaan on uniformki baan xidhaa waan quraacdaa waxa weeyaan waan caadayan markaan caadada kadib waan quraacan uniformki markaan xidho waxa weeyaan iskuulkaas ku diyaarinayaa and then 7 iyo barka iskuulkan tagaa 7 iyo barka markaan iskuulka tago sidaas ayaan iskuulka ku dhigtaa ilaa inta ka gaarayso 10 iyo barka xilliga araftada waxa weeyaan marmar library-gan galaayo wax ku akhristaa intaan maaragtay araftada aan ku qaadan lahaa waqti maala yacni marmar library-gan galaa marmarna aan gabdhaha iskuulka ayaan maaragtay kuwan u faa'iideyn karo tusaale ahaan maadaama intuu alifahay ardayda ilafanka oo kale ama kooyitonaadka baan maaragtay gabdhahooda caawiya hal meel isugu ururiyaa aan u sharaxaa waxa weeyaan kulba maadadii ay dhahaan way nagu adag tahay
markaan iskuulka markaa waqtigaa araftu dhamaatana classkan ku noqdaa iskuulka waxaan kasoo baxaa 12 barka 12 barka markaan iskuulka ka imaado xaafadaan imaadaa waxa weeyaan uniformkii baan iska saaraa markaan uniformka iska saaro waan weysaystaa salaadii baan tukadaa duhur waan qadeeyaa markaan qadeey ka bacdi wax yar baan nastaa labada duhurna waxaan tagaa madrasadaas waxaan ka marsadaa kutub xadiis iyo isugu jirta siiro anigu quraanka waan dhameeyay laakiin waxaan marsadaa kitaabo cilmi ah marka mid kale quraanku markuu qofku dhameeyo hadii uu markasta isku sii dhex jiro quraanku iloobaya marka labada duhurnimo madrasad baan tagaa waxa weeyaan madrasada waxaan ka soo baxaa 9 barka xilliga salaada casar leedahay xaafadaan maada waan weysaystaa waan tukadaa salaada casar markaan tukado ilaa inta maaragtay ay afarta ka gaaraysaa weysaysan waan tukan afarta markay gaadho anigoo salaadayda tukaday quraankayga ka imiday wax walba ay dhameystirayeen ayaan xilligaas waxa weeyaan hadda hooyo waxay dirsato sida tusaalahaan casriyaha oo kale hooyo ayaan maaragtay intaan shaahi casriyaha u keeno oon iyada hooyo ay iska shaahdo ayaan aniguna xaggay akhriska u kacaa waxa weeyaan afarta ilaa iyo 5 halkaas saac waxbaan akhristaa marka saas aan wuxuu akhristo hal saac kaliya waxba qofka bini'aadanka maaragtay waqtiga kala ka badan ay maalayaan ay ku bixiyaan ana naftaydiina dhibaynin oo saacado oo dhan akhriska dhigay ayaan hal saac akhriska dhigaa 4 ilaa 5 kadib markaan wax akhriyo ay 5 saac u gaadho waxa weeyaan kulmaadadii aan maalinka u lahaa jadwalka aan akhriyo ayaan iska dhigaa buuggii marka 5 gaadho waxa weeyaan entertainment waa iskaga baahanay qof bini'aadan ay moogtahay waxa weeyaan kadib aniga laftarkayga iska cuwaafanaya markaan iska cuwaafto hadaan sharaabi hadaan cunto cuni kadib 6 maghribnimo ayaan salaadii u weysaystaa markay gaadho salaadii maghrib ayaan tukadaa markaan tukada ka bacdi ilaa 7 intay ka gaarayso waxaan iska akhristaa ducooyin iyo adkaar waxa weeyaan 7 markii saa u gaadho 7 ilaa 8 hadana akhristaan kala halka saac hal saac baan wax akhristaa kadib markay 8 gaadho ayaa waxaan isku diyaariyaa inaan daawado warka ESTV 8 barka aan caalamka uga la socdo xog walba oo deegaankeena si aan uga warhayo ayaan waqti waxa siiyaa marka inaan daawado wakaalada warbaahinta ee ESTV 8 barka marka warka aan daawado ilaa 9 warka xilligu ka baxo ayaa waxa aan sameeyaa 9 ilaa 10 halkaas saac aniga laftarkaygu ruux dhalinyaro baan ahay marka internet ma iska isticmaalo halkaas 9 ilaa 10 halkaas marka internet isticmaalo 10 markay soo gaadho hadaan mobilka isticmaalayo iyo hadaan laptopka iska isticmaalayo midkaan ka isticmaalayo 10 markay gaadho waan iska dhigayaa halkaas kaliya internetka u horaa kadib 10 ayaa hadana waxaan qaadanayaa book kolba maadadii waxa weeyaan aan u laha akhris haday kitaabka tahay haday xadiis tahay haday maado kala maadooyinkan dugsiga lagu dhigay tahay iyo haday tahay waxa weeyaan waxyaabo kale oo sida suugaanta Soomaalida oo kale taariikhaha waa aragtay dadkii halgamaaga sida taariikhdii garaadwilwal sayidkeena waxyaabaha laftirkooda waan akhristaa si aan aqoon uga korsado marka 10 ilaa 12 halkaas hadana waxbaan akhriyaa kadib markay 12 gaadho ayaan seexdaa فضلا سبسكرايب صار channelka SYC Media haddii aad subscribe riix على مدعسانك kadibna riix gambaleelka si durbay ku soo gaaraan muuqaalada cusub oo ku soo bandhigay barnaamijyada cusub ee ka baxa SYC Media